أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ داوديال كسر هذا المشيني أنت كوشة حلقات كميدة الناس أسينا أنا قادر الرحمن صلى عبد الرشيد أتكون معنا داوشنا مقالكن كسر مقالكن نبدأ إنك بعدي ما أنت وحنا كهل دونا سيدي آيات كهل كرتها فرحات مرودنا نقول علوي بكرتها إسكين فوين كرتها مرugadu waa aqal qadiim ah oo ay degaan dadka doorta halka ay farxadu ka tahay aqal dahabi iyo qurux badan oo ay degaan si lamida kuwii hore dadka doorta doorashada labada aqalba waa mid ku jirta gacantaada midig iyo waxqabadkaaga maalinle haddaba daawade iyo golow inaan kula wadaago qodobo ka dhigaya mid aad saaxiib iyo la jaan qaadi karto farxadda hadda iyo hadda qodobkeena koowaad daawada waxa uu noqon doonaa ha ka walwalin wixii tagay shalay waxay ahayd waqti aad soo noolayd laakiin nasiib darro waa mid ka tagtay oo ina dhaaftay sidaa daraadeed waxaanu ku qasbannahay ilooshiyaha qaladaadkii guuldarrooyinkii iyo dhammaan dhacdooyinkii xumaayeen la soo kulannay si aynu maanta u shidanno shamac iftiimiya maalinteena iyo mustaqbalkeena qodobkeena labaad daawada waxa uu noqon doonaa ha ka walwalin mustaqbalkaaga beritoole ani iyo adi midna ma oga waxa dhici doona sidaasi daraadeed waxa inagu qasab ah inaan aqbalno dhicitaanka qadar oo aan qorshaysano waxa inoo dhacaya adiga mas'uuliyadda ku saaran waxa weeye miirka haysato inaad ku noolaato daqiiqado farxad leh kuna gudato waajibkaada maalinleed aanad ugu diyaargarowdo mustaqbalkaaga aan ku tusaaleeyo miyaad ogtahay beri waxa dhici doona anigu miyaan ogahay jawaabaha su'aalahaas waa maya saas daraadeed waxaa lagaa rabaa inaanad ka murugoon waxa mustaqbalka dhacaya labada qodob waa laba qodob oo muhiim ah oo kala ah iska ilow qaladaadkii guuldarrooyinkii ku soo maray iyo tan ah ha ka walwalin mustaqbalka berito iyo wixii maanta ka dambeeya waxaa dhici doona aan ku nasanno qodobka ugu dambeeya uguna muhiimsan lafdhabartana waa qodobka saddexaad iyo nuglow oo si fiican iigu soo jeeso qodobkan saddexaad waa qodob aad u muhiima murugada waxaanu u qaybinaynaa laba shay mid adigu aad wax ka qaban karto iyo mid aanad adigu wax awood aan lahayn oo aanad wax ka qaban karin tan koobaad aan ku soo laabano midda aad wax ka qaban karto waxaa kuu dhigay adigu wax ka qabo bedel qaabkeeda bedel murugadeeda bedel habsocodkeeda uma bedel waxaad ku farxo waxa laga yaabaa ku tusaaleeyay inaad ka murugoonayso natiijo xumo kaaga timiday imtixaankaagii waxaad qabanaysaa adigu bedel taasi waa mid adiga gacantaada ku xidhan halahaasi iyo kuwa la mid ah oo aad ka murugoonayso oo laakiin aad wax ka qaban karto ayaa jira waxaad ka murugoonayso aad wax ka qaban karto adiga ayaa isdhigtee bedel aan ka eegno dhinaca kale oo aan ka istaagno waxaa jira murugo adigu aanad waxba ka qaban karin qadarka rabbiga cid wax ka qaban kartaa ma jirto waxaasna ma mudna in laga murugoodo maadaama oo ayna mudnayn laga murugoodo laba mudna inaynu ka fikirno labada qodobka ugu dambeeya waa qodobka ugu muhiimsan waa shimbir laba baal ku duulaysa baalkan oo ah baalka ah wixii aad ka murugoonayso eed qaban karayso adigu bedel falcelinteedana ka dhig mid togan oo toosan waxaad ka murugoonayso ee aanad wax ka qaban karayna inaga tuur oo qashinka inagaga dar maadaamaynu awooddeeda iyo kartideenu lahayn laakiin adigu maanta waxaad awood u leedahay ka dabaalashada carqaladaha shalaytoole lugaha kaa xidhay ayaad maanta awooddeeda leedahay maadaamood kortay caqli ahaan cilmi ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabo waxqabadkaaga ugu wanaagsan dhig raadkaaga calaamadaada muuji oo caddee dunida ciddaa tahay talana saaro rabbi waxaan kaaga tegayaa hal mid oo ah hadduu muuqaalan ku anfaxay fadlan like la wadaaga asxaabtaada waxaanu mahad celinaynaa goobta barbaarinta ubadkaab oo ka qayb qaadatay maalgelinta fiidiyogan mahadsanid